إننا عدالة فرو أيوة أن تكاس وكل إحدنا ما أنت معلنا عند الله سبحانه وتعالى يقول حساب طبيعي مسؤولية باقي كين صارت كين ساك حنوصل كان أختار كوب باهد كان مال كوب قدوسن إله سبحانه وتعالى ما أنت نوض الشيء صار ما أنت معلنا عند الله سبحانه وتعالى يقول حساب طبيعي هذا عدالة الرأي أن يجاك كوسمي وركيه هنا نود دامي ورمحان نو كينه إن اللي يرهده إن شاء الله بيد ملاك ما دعي دونت ما دونينو فدران يوحنا أحسن deegaanka uma ogolin raalin kamid ciidan ku aragna talaabo sharci aan ka qaadina insha Allah billahi waxaan kaloo rabnaa in aan dagala shaqeysaan wixii xumaan cid wado aad war waxaas waa sax ma aane balsaani saxda halka aan baashaan geen ani wiilkii hore waan igu sheegay wiilkiina aan ahay cid intina baalash nimanka in noqon lahaa ku duulaa gabdhihiina iyo haween iyo dhalinyarada wadaashiina waa iniga hadda iniga gar istaag weysaan aniga waxa ma noqon karo deegaamada naga maqnaa oo koob ay ka tahay badhaan inaan xoreynayno taas aan naga ballan qaaday waxaan kaloo ku xujinaynaa in mataqaanaaye deegaamada kale naga maqana inaan gacantan ku soo celino hadduu ilaahay yiraahdo taasna in waxa leenaan nagu garab istaagtaan oo gacmaha as qabsataan oo dadka walaalaha islaax banees aad kala shaqeysaan oo kala talisaan walaalidii qaldan aad amar waxa waa qalad iska daayo halkan saxda mara gabdhaha بعد صحافتها عندما قلبك سلام وحنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدوة يعني ماشي. أنت كنت بركة واضح أمها وداعش نوي بالجارس ووقت قدر نوصل بجهد قدر نوصل بيه ويبيد إن كشق يعني إصلاح بين الناس ومضي الناس كسر دواته يجينا أمها على مركل الواد يجينا أمها علينا مركه حكتو وحنا رواينا هل كان كجاه هذا إن ما أنت شغله يجينا كل بيو wax dibna uusan ka jirin uu amni yahay ayna joogto dawladda Jubbaland horena u joogto saad u ogtihiinba aysan imaanin dawlad cusub dawladda hore u joogto ma hadana joogto oo Jubbaland ah markii xigto waxaan rabaa inaan u sheego rekulbiyow ciidanka hadda ku jira halka Kenyaanka ku jira inay yihiin ciidanka Jubbaland horena ay u ahaayeen haddana ay yihiin ciidanka halkan joogaan waxaan halkan ka cadeynayaa inaysan ciidan kale oo federaal ah inuusan joogin kulbiyo qofka fikrad qaldan waa laga dhaadhicin karaa laakiin waxaan baaq u dirayaa nimanka walaaladeena ah oo ku jira xalada Kenyaanka ku jiro oo kulbiyo gudaheeda aan joogin in qaladka laga dhaadhicin inay iska saaraan oo deegaankooda iyo dib ay ugu soo noqdaan oo u sheegin inaan wiilashooda nahay oo Jubbaland wada nahay deegaanku amni yahay wax dhib inuusan ka jirin uusan ka dhici doonin waxaan rabaa marka inaan tolka amni deegaanka dadka meesha fadhiya inaan aan ugu soo celiyo oo horan oga hadlay in ay cafis yihiin oo horan u cafinay marna ana cafin waxa ana oo saakada halka ka soo wada baxaan ay cafis naga yihiin waad ogtihiin rag iyaga kamida inay soo baxeen oo deegaanka saakay amniga ka sugay magaalada Kulbiyo marqaadi waad ka wadatiin inaan waxa loo geysanin la xirin wax kale aan lagu sameeynin qori aan laga qaadin taas baa nigu filcadeen ciidan kuwaas la bidishin yaaro in saak baan asweydiin yaa fadlan halka fadhiyaad oo madax fadhi ma jira intaan Jubbaland baan nahay 13 sano Jubbaland ahaydeen 13 sano Jubbaland ahayd ma 20 biri baad ku noqonaysaa fadlan waxa dhici kara ma aniga niga balan qaadaya maadaama aan gudoomiyihina ahay inaan cadowgeen u hal yahay aan hore u soconayno deegaamada naga maqnaa oo koob ay ka tahay badhaan inaan xoreynayno taas aan naga ballan qaaday waxaan kaloo ku xujinaynaa in mataqaanaaye deegaamada kale naga maqana inaan gacantan ku soo celino hadduu ilaahay yiraahdo taasna in waxa leenaan nagu garab istaagtaan oo gacmaha as qabsataan oo dadka walaalaha islaax banees aad kala shaqeysaan oo kala talisaan walaalidii qaldan aad amar waxa waa qalad iska daayo halkan saxda mara markaan midnimo helno oo amni aan helno oo caafimaad aan helno oo waxbarasho aan helno ban horumar u gudbi karnaa waxaan ballan qaadayaa anigoo ah gudoomiyihii degmada Badhaadhe waxaan ballan qaadayaa in horumar muuqdo inaan deegaanka u sameyn doono insha Allah haddii ilaahay hadda u soo horeyso bal doosna waan qodaynaa ceel waan ka doonaa Kulbiyo insha Allah biidmillahi kariim markii waxaan leeyahay rabaa inaad igu gar istaagtaan
وحالي شعب دولة الوشي والشعب شعب هدوسن جرين دولة مجلس دولة شعب هدي دولة لواينا شعب مجري حقيقيا ما كرنتك هذا الله وليش هالكا كجرو odayaashan baa wada intan hebel masleena meesha laga soo saaro nin walba wiilka gacanta ka soo qabso kan qaltan waxa loo sheego waxaan ii sheegayaa deegaankii inuu amni yahay odayaasha waxaan u sheegayaa in ay soo celiyaan dadka barakacay oo naga maqan oo walaalaheena oo si qaldan wax laga dhaadhiciyay in kulbiyo ay amni tahay Jubbaland gacanta ay ku hayso wax dhibna uusan ka dhici doon si odayaasha hore uga hadleenba annaga ma doonayno inuu kulbiyo wixii hore u dhacay waxaan ahayn inuu dib uga dhaco kaali kamani midnimada ka shaqeeyo isku xidhnaada oo calooshina saafiyaas ku noqoto oo odayaasha la yara caloosh wax isku hayo mid caloosh wax iska daaya wallahi maanta maalin ahayn baa jirta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku istaagi doona nin walbana amalkiisu la tigi meesha cid xisaabinaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ku istaagi maanta maalin ahayn insha Allah biidhnilaahi kariim waad mahadsantihiin aan ka wada shaqeyno saan hore ugu socon lahayn cadawgana waa halkan waa halka ku jiro deegaankeena degmada Baradho waan tegaynaa waan qabanaynaa horumar baan ka sameeynaa haday tahay mar walba nagu soo celin haday tahay waxbarasho haday tahay biyo haday tahay caafimaad wax walba aad u baahan tihiin midna wax lagu noqdaa midna san ku wada qaban insha Allah biidhnilaahi kariim insha Allah waxaan inaga rajeynayaa guul iyo gownimo Jubbaland maxaa la Jubbaland taasaan insha Allah biidhnilaahi kariim.